Midowgii Sofiyeeti wuxuu ahaa quwad weyn oo dunida ka talisa, nidaam shuuci ah oo ay dawladdu wax walba maamusho, iyo dal ka kooban 15 jamhuuriyadood. Sofiyeetku wuxuu ahaa dawlad shuuci ah oo aad u ballaaran, kuna fidsaneyd qaaradaha Yurub iyo Aasiya, waxaana lagu xasuustaa tartankii siyaasadeed iyo kii militari ee uu la galay reer galbeedka intii lagu jiray dagaalkii Qaboobaa. Sanadkii 1985 waxaa hoggaankii Sofiyeetka qabtay Mikhail Gorbachev, oo ahaa hoggaamiyihii ugu dambeeyay iyo shakhsiga lala xiriiriyo burburkii Sofiyeetka, wuxuuna keenay laba siyaasad oo taariikhda Sofiyeetka beddelay. Wuxuu dib u habeyn ku sameeyay dhaqaalaha dalka, isagoo oggolaaday in dadku si furan u dhaliili karaan dawladda. Ujeedadiisuna waxay ahayd badbaadin, laakiin natiijadu waxay noqotay mid ka duwan taas. Waxaa bilowday isku dayo afgembi, jamhuuriyadihii oo dalbanaya madax-bannaani, iyo xisbigii shuuciga oo awooddiisii luntay. Diseembar 1991 Midowgii Sofiyeeti si rasmi ah ayuu u baaba'ay. Burburkii Sofiyeetka kadibna waxaa talada Ruushka la wareegay Boris Yeltsin. Yeltsin ayaa 31 Diseembar 1999 sameeyay ku dhawaaqis lama filaan ah oo ahayd inuu xilka iska casilayo, isagoo u sheegay daawadayaasha telefishinka in Ruushku u baahan yahay siyaasiyiin cusub, wejiyo cusub, iyo dad caqli badan. Xilligaas waxaa dalka ka jiray musuqmaasuq baahsan iyo dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo bulsho oo aad u waaweyn, taasoo keentay in madaxweynenimadii Yeltsin ay noqoto mid si isa soo taraysa loo neceb yahay, isla markaana aan la saadaalin karin. Iscasilaadii Yeltsin kadib, saqdii dhexe ee habeennimo, waxaa TV-ga laga arkay Vladimir Putin, ra'iisul wasaarihii Ruushka iyo ninka loo asteeyay inuu beddelo madaxweynihii iscasilay ee Yeltsin, wuxuuna sheegay inuusan jiri doonin firaaq awoodeed, isagoo yidhi, isku day kasta oo lagu jebinayo sharciga iyo dastuurka Ruushka si adag ayaa loo gudbin doonaa. Haddaba Vladimir Putin kumuu ahaa, siduuna ku soo gaaray ilaa heer uu madaxweyne ka noqday dal ka mid ah dalalka ugu awoodda badan caalamka? Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Vladimir Putin wuxuu dhashay sanadkii 1952, 7 sano kadib dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka, xilli ay weli taagneed xusuusta go'doomintii Leningrad oo hadda loo yaqaan magaalada St. Petersburg. Go'doomintaas oo dishay walaalkiis ka weyn halka waalidkiisna ay si dirqi ah uga badbaadeen. Wuxuu ku soo barbaaray guri wadaag ah oo ciriiri ah, lahna jikada iyo musqusha la wada isticmaalo, kana buuxay jiir iyo boromboro. Buuggiisii is-xasuusinta ayuuna ku sheegay in isagoo yar uu marar badan jiir kula dagaalami jiray jaranjarada guriga. Putin wuxuu wax ka bartay jaamacadda Leningrad State University, isagoo ka qalin jebiyey kulliyadda sharciga. Macalinkiisii jaamacaddana wuxuu ahaa Anatoly Sobchak, kaasoo markii dambe noqday mid ka mid ah siyaasiyiintii hogaaminayay isbeddeladii dib u habeynta ee Midowgii Sofiyeeti. Putin wuxuu ka soo shaqeeyay 15 sano sirdoonka dibadda ee KGB-ga, oo ay ku jiraan 6 sano oo uu ku sugnaa Jarmalka Bari, maadaama Jarmalka Bari uu xilligaas ahaa dal shuuciyad ah oo taageero ka helayay Midowgii Sofiyeeti. Sanadkii 1990 wuxuu ka fariistay shaqada firfircoon ee KGB-ga, isagoo haysta darajada Colonel, wuxuuna ku laabtay Ruushka si uu u noqdo kaaliye maamul oo jaamacadda Leningrad State University ah. Wuxuu ahaa mid ka mid ah maamulka sare ee jaamacadda, gaar ahaan waxa uu ka shaqaynayay arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga jaamacadda. Shaqadani waxay siisay Putin waayo-aragnimo maamul iyo xirfado siyaasadeed oo ka caawiyay inuu mustaqbalka u baxo xilalka dawladda. Dhowr bilood kadib, Putin wuxuu la taliye u noqday macalinkiisii jaamacadda Sobchak, oo ahaa duqii magaalada Petersburg, oo markii ugu horreysay si dimuqraadi ah loo doortay. Wuxuu si dhaqso ah u kasbaday kalsoonida Sobchak, wuxuuna caan ku noqday awooddiisa waxqabasho iyo firfircoonidiisa. Sanadkii 1996, Putin wuxuu u guuray Moscow, halkaasoo uu kaga biiray shaqaalaha madaxtooyada, isagoo kaaliye u noqday Pavel Godin, oo ahaa maamulaha guud ee aqalka looga arrimiyo Ruushka. Wuxuu xiriir saaxiibtinimo la yeeshay Anatoly Kupais oo sidoo kale ka yimid Leningrad, wuxuuna si tartiib tartiib ah ugu kacay xilalka maamulka. Julaay 1998, madaxweyne Boris Yeltsin wuxuu Putin u magacaabay agaasimaha Hay'adda Amniga Federaalka, taasoo ahayd beddelkii gudaha ee KGB. Kadib si dhaqso ah ayuu u noqday xoghayaha Golaha Amniga, halkaasoo uu ku yeeshay saameyn weyn oo siyaasadda gudaha iyo ammaanka dalka ah. Sanadii 1999, Putin ayaa loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka. Iscasilaadii madaxweyne Yeltsin kadib,
Vladimir Putin ayaa noqday madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee Ruushka, wuxuuna ugu dambeyn sanadkii 2000 loo doortay madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Ruushka. Putin wuxuu xukunka hayay rubuc qarni in ka badan. Maanta, Vladimir Putin wuxuu astaan u yahay hoggaan xooggan, isla markaana saameyn qoto dheer ku yeeshay taariikhda Ruushka. Su'aasha taagan ma aha sida uu xilka ku yimid oo keliya, balse waa sidee ayuu mustaqbalka Ruushka u qaabayn doonaa hoggaankiisa dheer. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka, waxaa halkan ku eg sheekada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wixii aragtidaada ahna qaybta faallada ee kommentiga nagula wadaag. Nabadgelyo.